لا فوق شو يا عاقل إن داود يال waxaan ku sugannahay taalada shuhadada ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkan waxa loogu diyaar garoobayaa soo dhaweynta boqor Burhaan boqor Muuse boqorka beelaha Dahrood si weyn ayaa loo adkeeyay amaanka ciidamada xasilinta ayaa ka qayb qaadanaya oo goobta ku sugan daawadayaal halkan aan ku sugannahay oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadweynahan tirada badan ee magaalada Laascaanood waxay u diyaar garoobayaan soo dhaweynta boqorka ammaanka ayaa aad loo adkeeyay ciidamada xasilinta ayaa ka qayb qaadanaya sida ammaanka loo sugi lahaa oo halkan ku sugan saacad ka hor magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool roob baa ka daay ma sha Allah dhulka barwaaqo ayaa ka muuqata dadweynuhuna waxay ku faraxsan yihiin inay si weyn u soo dhaweeyaan boqor Burhaan boqor Muuse oo la filayo inuu soo gaaro goor dhow haddii Rabbi raali ka dhigo dadka ayaa waxay sitaan calanka qaatumo calanka dawladda Puntland si weyn ayay ugu faraxsan yihiin inay halkan yimaadaan oo ay soo dhaweeyaan boqorka ciidanka xasilintu si weyn ayuu uga qayb qaadanaya taliyayaashooda ayaa jooga oo ammaanka sugaya taliya xagee marayaan goordhow ayuuna soo gaari doonaa soo dhaweeyay taliya sida saraakiisha ay sheegeen boqorka boqorku soo dhaweeyay hadda wuxuu salaamayaa isimada dadweynaha ayaa si weyn looga codsanaya inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida midkana waa mid ka mid ah askarta xasilinta ee goobta ku sugan daawadayaal halkan aan ku sugannahay oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool warbaahinta halbeeg ayaad kala socotaan sidoo kale ciidamada ayaa si weyn halkan u ilaalinaya gaar ahaan ciidanka xasilinta dadku si weyn bay ula shaqeeyeen sida nabadda loo ilaalin lahaa intii ay ciidankani magaalada ka aasaasnaayeen waxay si weyn ula dagaalameen يا سلام سا هالباقو سا waxaan ku weydiiyay ka horreysay dhaweynta boqorka iyo sida ugu diyaar garowday xaafadaadu ka timid ma buu halla ka timid ninkan sheekadiisu waa khatar wuxuu sheegay inuu buu looga yimid suu boqorka u soo dhaweeyay goorma timidna saaka timidna ay adana magaca ay xaafadee egas Laascaanood xaafadee ma بشعص وقت عوض بشعص هذا قرا دكتورك وين باقت هذا جماهير ترى دكتورك
daawadayaal halkan waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool warbaahinta ka daawanaysaan waa warbaahinta Halbeeg waxaadna kala soconaysaan soo dhaweynta boqorka magaca Aasiya adigu xaafadda ka timidna madareyba balka hor soo dhaweynta boqorka waa garteen roobna waa daay balka hor waa أي مقعدنا أي من حافظتك هذاك هلكن كل بركات باكتي ما شاء الله أدنى يا حنان حافظتك من هالباكت وهي هي هي ما شاء الله ربي وينو دبيبي ونادنا ربي وينو واقرتي لما أنا بقول كني بسود وينا بقول بلان بقول موسى بسود وينا ونتاجنا كل حدا يبعث واقرت الربنا وينو داي ما شاء الله أنا داوديال هذا واحد نقصنا هاي مقالة Laascaanood حرمت قبل كسول halkan aynu hadda joognaa waa taalada shuhadada waxaana la sugayaa taalada shuhadada ayaynu hadda halka ku sugannahay dadweynuhu si weyn ayay u nidaamsan yihiin ciidamada ammaanka ayay la shaqeynayaan waana soo dhaweynta boqor burhaan ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lagu soo dhaweynayo مقعة يا سكري هلك معاوتي يا مقعة مقعنا أنا مقعة خبر كور ما عيد ما كتر سنتها هي عيدن كه يا بس هل كانت سلوية توتي هي صف ويسيبني يعني ماشي daawadayaal halkan aad nagala socotaan waa warbaahinta Halbeeg waxa la soo dhaweynayaa boqor burhaan oo soo gaari doona goordhow magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaca magaca الله يفهم كتير magaca عبد الرحمن كور قرب حق أنت سيدا بقر كوسي دويس سلام وسلام هاي سام هاي ويا حافظك تبغى
ها اقص باكتي تراجلر بصوبش ايه مقعا ما عبد الله صحافته هذا كتب جيدا كتب ايه ان داود يال ان halkan waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa hadda soo socda waftiga صعب daawadayaal waxaan ku suganahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkan waa taalada shuhaadada waxaana lagu soo dhaweynayaa boqor burhaan ciidanku sidaas ay dadweynaha ugu jiraan oo dadka shacabka iyo ciidanka xasilintu sidaas isugu dhex jiraan jacaylka ay u qabaan way iska ag joogaan bulshada iyo ciidanka xasilintu si weyn bay wada shaqeynayaan ka hor ciidanka xasilinta haye mid ka mid ah ciidamada xasilinta waa warkayna dhaafiya shacabka halka maraya iyo istaagin caadi waa go'in soo dhaweynaya daawadayaal taalada shuhaadada ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaan ku suganahay halkan waxa loogu diyaar garoobayaa in lagu soo dhaweeyo boqor burhaan boqor muuse boqorka ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ismada dhaqanka ayaa ka hortagay dadweyne aad u tiro badan ayaa halkan isugu yimid si ay u soo dhaweeyaan boqorka goobaha ay dadku halkan sida weyn isugu imanayaan daawadayaal calanka khaatimo ayaa idin muuqda waa gabadh ka mid ah gabdhaha soo dhaweynta ka qayb qaadanaya ayaa sidata shacabku si weyn ayay askarta ula shaqeynayaan بارك عبر الماسكين بكر الراس حولاتكم معاك بلن بكر الراس حولاتكم معاك بلن دولة ما رجعين ما هو يرجعين ما daawadayaal halkan lagana socotaan warbaahinta halbeeg waxaan ku sugannahay taalada shuhaadada ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa la soo dhaweynayaa boqor burhaan boqor muuse
isimada dhaqanka sool sanaag iyo cayn ayaa ka hortegay dadweynahan tirada badan waxay qayb ka yihiin soo dhaweynta mudaadig laguma soo dhaweynay daawadayaal kala xigana daawadayaal xamaasadaada ayay u sarreysaa soo dhaweynta boqor burhaan boqor burhaan boqor muuse hadda ayuu soo gelayaa boqorku sacabka daawadayaal taalada shuhadada ayaan hadda ku sugannahay hadda waxaa soo gaadhay goobta wafdiga boqorka oo intii ugu horreysay ayaa soo gaadhay waxaana ugu horreeya garaa jaamac garaa ismaaciil ayaa ugu horreeya oo wafdiga sidoo kale daawadayaal hadda boqorka ayaa soo gaadhay goobta daawadayaal boqorka ayaa hadda soo gaadhay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool boqorka ayaa garaa jaamac garaa ismaaciil hadda waxaa soo degaya daawadayaal hadda waxaa soo gaadhay goobta boqorka ayaa soo degay dadka ayuu salaamayaa warbaahinta hoggaag ayaad kala socotaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidaad la socotaan daawadayaal boqorka ayaa lugeynaya halkani waa taalada shuhadada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
هذا وضع halkan waxa lagu soo dhaweynayaa داوديال يا ناس هذا حاجه صرفوني ويا اكس دبلومات كتابه يرقبوا ساير ان داوديال ومغالده laascaanood xarunta gobolka Sool warbaahinta halbeeg ay kala socotaan halkan waxa lagu soo dhaweynayaa boqor Burhaan boqor Muuse boqorka beelaha Daarood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool داوديال hadda waxaan ku sugannahay waxaa si weyn magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool loogu soo dhaweeyay boqor Burhaan boqor Muuse boqorka beelaha Daarood dadweynaha magaalada laascaanood ayaa halkan isugu yimid ismada dhaqanka maamulka ciidamada kala duwan ee si qaatumo ciidamada xasilinta ciidamada booliiska dadweynaha tiro badan ayaa halkan yimid boqorka يا صباحي ده هذا قاتل ده سو غارين الجلاس كان الناس مسدد انا داوديال halkan waa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada boqor Burhaan boqor Muuse boqorka beelaha Daarood ديبو نقوله غاريغا ديبو باخ كودنه ديبو صابع ديبو كورماو كچ وركچ غارين غليه سكاي وريا
قرات جامع قرات إسماعيل قرات جامع قرات إسماعيل هي بلشدو لسعتها قرات مداية daawadayaal halkan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa gaarigani saaran dadweynaha dhan waxay doonayaan garaadka inay salaamaan halkan ay isugu yimaadeen dadweynaha magaalada Laascaanood واسكع عالية صعود dadweynuhu waxay si weyn ugu xiiso qabaan soo dhaweynta waad aragtaan dadku askari khuyar dadka wariya gudaha magaalada ayaan soo gaadhnay hadda daawadayaal halkani waa magaalada Laascaanood waxaa si weyn loo soo dhaweeyay boqor burhaan kusoo dheeraaday daawadayaal halkan hadda aan ku sugannahay waa bartamaha magaalada Laascaanood waxaa la soo dhaweynayaa boqor burhaan gudaha magaalada Laascaanood ayaan dhex maraynaa ciidanka booliiska ayaa noor socda la soco
أيوة كاتك بيه ما كمان سجن قوير داي قاعد إنه ده أنا كمان بكسورة شوف سلام والله ده عقل الله هذا فهو شو حصار جماهيرtu sida wardi soo aragtaan baabuurta iyaga ka dheereeyay dhalinyaradan tirada badan ee halkan soo socda waa hadda waxaan maraynaa mushaaci magaalada Laascaanood غير سعر يا غير سعر غير سعر غير سعر hadda waxaan maraynaa martaba magaalada boqorka ayaa la galbinayaa warbaahinta halbeeg ayaad kala socotaan waa soo dhaweynta boqor Baraan boqor Muuse oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka soo gaaray hadda waxaan ku soconaa hoyga uu ku degi doono boqorku ciidamadii xasilinta ayaa si weyn uga muuqda soo dhaweynta boqorka أنا قد هذا واحد سوق عنا يقول قرأت جامعة قرأت إسماعيل هو جاي هالكنا يا لقوا سدوين دونا إن وراسنا ماشي وكان قادر hadda ayaa la soo dhaweynayaa boqorka warbaahinta halbeeg ayaad halkan kala socotaan dadweyne gaarigii boqorka ayaa hadda soo galay halkan ku sugannahay waa hoyga garaad jaamac garaad Ismaaciil ducaale daawadayaal si aad la socotaan warbaahinta halbeeg
عبار بقول كانوا ده حاجة يعني قولوا كل حشرين حاجة سوق دبي هذه قاري قلبه بحياتهم بحياتهم في جوا كان لا وري وري لا وري هذا نفيس محمود شو تاخذ فرن قدر وردوبة حق سبيس بعد دوبة daawadayaal halkan halkan ayaa loo diyaariyay boqorka iyo waftigiisa gudoomiyaha warbaahinta SC Khaatumo ayaa halka ku sugan bal mukhtaar bal ka waran soo dhaweynta haye garaad mukhtaar soo dhawow garaad ku soo dhawow madasha roob baa inoo daay garaadka ayaa inoo ducaynaya garaad warbaahinta halbeeg leef baan ku jiraa ku soo dhawow maasha allah halbeeg khayr la siiyo maanta waxaan soo dhaweynaynaa boqor burhaan iyo wafdi ballaaran oo ilaa Kenya ilaa iyo Jubbaland iyo deegaano badan oo Puntland ku yaala ka yimid alxamdulillah ilaahay noo nimcay roobkii noo shub ilaahay dhisigii waa ka nabay barwaaqa ka dhacday haddana insha allah madasha gurigii garaajaan garaad Ismaaciil baan ku soo dhaweynaynaa inta noo hadhay kuwanka noo soo dhaweeyo sababtay inta soo kale assalaamu calaykum daawadayaal soo boqor burhaan boqor muuse boqorka beelaha daarood iyo waftiga uu hogaaminayo boqorka beelaha Soomaaliyeed meel kasta shanta Soomaaliyeed boqor soo dhawo ismada dhaqanka SC Khaatumo ayaa boqorka galbinayo la socda soo dhawo boqor iyo waftiga la socota الله يبارك waxaan u baahanahay qof dadka waqtiga garanayo xagga noo tahay horta liiskan magacyada fadhigan inaan keenayna soo galaan gudaha hadhowto mushkilad ma leh si soo galaan qaar ba daawadayaal sida hadda ku aragtaan waxaan ku sugannahay madasha soo dhaweynta hoyga garajaamac garaad Ismaaciil ayaa lagu soo dhaweeyay boqorka وأنا فرنا مرتين وقنا يوم من أحسانكم شعب كريم أسعار وياشي وحكرتك مرتين يوم بنينو عينك هالوها قسم عينك هالمثل هالوها قسم بس كده بس قرأ عبد الله قرأ صدوا أنت بقرك وصدوا 40 طالبك لايف بات قرأ سليمان قرأ soo dhaweynta boqorka sidaad soo dhaweysan ku soo dhaw warbaahinta halbeeg live baynu ku jiraa dadweyne oo ku arkaya
la isku keenay saano baatidii waa ka baxday waliba la soo socday waa cusubeyna cid walba kala leeyahay Soomaali aad iyo aad baan soo dhaweynaa وفد la socota simada ka yimi Ismaayo Nairobi iyo Baydhabo iyo Puntland oo dhan soo dhawaada dadweynuhu si weyn bay garaad u soo dhaweeyeen fariinta u dirayso sidii nabadgelyada ay u ilaaliyeen intii aad bay mahadsanyihiin ilaa maraagi ilaa guriga aan joogno dadku waa taxanaa iyo gaadiidka dadweynaha aad baan ugu mahadnaqayaa oo muuqata inay aad u caadifaysan yihiin aad u faraxsan yihiin marnimada iyo turnimada iyo wanaagga ka muuqda magaalada marna lama qiyaasi karo waa mahadsantahay iska fadhiisa garaad قرا عبسلان قرات كسدو ورباينتا هلباق لايف aynu ku jiraa dadweynaha halka fariinta uga diraysan iyo soo dhaweynta naga war قرات soo dhaweynta boqorka fariinta dadweynaha maadaama aan live ku jiro ku soo dhaw ugaas ku soo dhaw garaad muxtaar waa wareysanay halbee ku soo dhaw live baan ku jiraa dad 3,000 qof kor u dhaafaya ku daawanaya fariinta soo dhaweynta hay